hay'adda dhowrista tayada Somaliland ayaa si ku meel gaar ah ula wareegtay gacan ku haynta xarunta warshada Yufaras ee soo saari jirtay sharaabada iyo cunooyinka fudud. Ciidamada booliska Somaliland ayaa lagu arkayay xarunta warshadaasi iyaga oo gacan ku haynteeda la wareegay isla markaasina ku sugan waqti hore oo saaka ah. Sidoo kale goobta waxa ku sugnaa maruu telefishinka bulsho gaaray xarunta warshadaasi. Hawlwadanada hay'adda dhowrista tayada Somaliland oo iyagu baadhayay heerka tayada ee warshadaasi. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland oo goobta gaaray ayaa waxa uu ku galay qaybaha kala duwan ee ka koobneed warshadaasi isagoo soo kormeeray agabka kala duwan ee dhex yaala warshadaasi Yufresh. Intaasi kadib agaasimaha waaxda deegaanka iyo fayadhowrka warshadaha ee wasaaradda ganacsiga dalxiiska mudane Dhuux Cabdilaahi Cabdi oo bulsho TV la ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha loo xiray warshadaasi. Shirro badan laga galay wada tashi fara badan laga galay wax soo saarkeedii la golo keenay waxay isku raaceen oo ay isku waafaqeen hay'adda dhowrista tayada qaranka iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiisku in aan gabi ahaanba warshadaasi imika sii furnaan karin. marka taariikhda aan ku soo sheegay laga bilaabo warshada la yiraahdo Yufresh ee ay Chaynuhu leeyihiin ee soo saartay sharaabka waxa loo joojiyay si ku meel gaar ah. gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo bulsho TV la hadlay ayaa waxa uu mid u dustaagay qodobada kala duwan ee hay'addiisu adeegsatay hakad gelinta shaqada ka socotay warshada Yufresh ee la wareegto hay'adda dhowrista tayada Somaliland si ku meel gaar ah. baaristi ama muxuu stepkii labaad hawlkaasi wuxuu daarnaa in muddo waxaan ku daba jirnay shirkad ama warshada Yufresh Yufresh Enterprise balehda warshadaasi waxay soo saartaa waxyaabo badan oo sharaab ka mid yahay sharaabo badan oo kala duwan caano badan oo kala duwan biscuit kala duwan crisps ama chips waxaan loo yaqaano oo kala duwan hay'adaas markii aan dabagal ku sameynay annaga iyo wasaaradda ganacsiga oo iskaashanayna qaybta u qaabilsan shaqada muxuu fayadhowrka iyo muxuu ilaalinta deegaanka ee wasaaradda ganacsiga iyo baarayaasha hay'adda dhowrista tayada waxaanu aragnay waxyaabo aanu doonayno inaanu aad uga baaran doono aanu baaris dheeraad ku sii sameeyno taawgeed baanu soo saarnay muxuu oo xafiiskayga ka soo baxay wareegtadan warqadan ah ma in shaqadii ka socotay warshadaas Yufresh laga bilaabo maanta la hakiyo inta aanu baaris mug weyn aan ka gaarayno aan ka baarayno shaqadii hay'adaas warshadaas waa la hakinaya hadii la ka dhigo waxaan wargelinaynaa bulshada iyo ganacsatada reer Somaliland wax dhib ma jiraan baaristaasi waa mid ka mid ah hawlgalka iyo shaqada aan u qabanno maalin walba ku guda jirno tanna waxaan go'aansanay in aanu intii muxuu aanu baaris dheeraad aan sameeyno inaan hakino shaqadii meesha ka socotay shaqaalaha warshada u shaqeeya iyo dadka warshada iska laba waxaan wargelinaynaa oo u sheegaynaa in wax dhib aan jirin baaristaas oo soconaysa sida ugu dhaqso badan laanoo soo afjarno wixii baaristaas ka soo baxana aanu la wadaagayna hadii ka dhigo. geesta kale gudoomiye Muuse Xasan Xaaji Yuusuf waxa uu si rasmi ah u shaaciyay inay ruqsadii ay ka haysteen hay'adda dhowrista tayada Somaliland ay si rasmi ah uga noqdeen warshadaasi. waxyaabaha warshadaasi soo saartay way badan yihiin sidaan sheegay wax dhib oo weyn oo ma jiraan waxaan doonaynaa inaan hubino tayadooda aan soo baarno waddanka gudihiisa iyo dibadiisa aan ku soo baarno waxaan kaloo ilaalinaynaa insha Allah shahaadadii hay'adda dhowrista tayadu ay siisay shirkadaas oo ah an aanay gacanta ku hayo ee diiwaangelinta ahayd iyo sugidda tayada laga bilaabo maanta inaan warshada kala noqonay si ku meel gaar ah marka aanu hubino baaristu noo soo dhamaato wixii ay xaq u leeyihiin waanu u celinaynaa hadii ay ka dhigo haday ruqsadda noqoto muxuu ay ku shaqeynayaan hay'adda dhowrista tayada ay hore u siisay annagoo adeegsanayna xeerka hay'adda dhowrista tayada number 68/2014 qodobkiisa 4-aad firqadiisa B qodobkiisa 8-aad firqadiisa koowaad iyo tiisa labaad waxaanu maanta hakinay shaqadii ka socotay warshada Yufresh ilaa intaan baarista aan wadno aan dhamaystirin wixii warbixinaha dambe waan idin soo sheegnaa insha Allah bulshada iyo waxa ay warshadaasi soo saarto wax imika degdeg oo dhibaato ah oo aan ku aragno oo ku hayno cadeynayna ma jirto muxuu shaqadii baa laga hakiyay baaristaasna oo sameeyna markaan baarista dhamaystirnaa warbixinta insha Allah waan idin la wadaagaynaa.
si kastaba haatee waa markii ugu horeysay Somaliland ay warshad shaqaynaysa hay'adda dhowrista tayada Somaliland ay hakad geliso hawleeda shaqo isla markaasna ay cuskato inay buuxin weydo heerkii tayada looga baahnaa. Luqmaan Maxamed Farax Bulsho TV Hargeysa.